السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan ka salaamaya dadweynaha Soomaaliyeed meel kasta joogaan. waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. bacda salaam, maanta waxaynu ka hadlaynaa Somaliland oo ay ka bilaabmeen mudaharaado ka bilaabmeen iyo buuq badan ka socdo, taasoo ah doorashadii oo dhici weeyday iyo guurtidii oo tiri madaxweynaha waxaan ugu daraynaa 2 sannadood waqtigiisa hadduu 4 sano dhamaystay. markaad xisbadii mucaaradka ahaayoo muddo dheer mataqaanaa soo jiray marnaba aan xukunka qabanin. sanadkii dhaweydna xasan muuse bixi ka guulaystay, inkasta iyagu lahayn annagaaba guulaysanay waana la khiyaaneeyey. waa maxay ahayd iminka waxay bilaabeen mudaharaado inay shacabku kiciyaan iyo buuq badan bay bilaabeen. marka maxay ahayday waxaan oran lahaa laisu tanaasulo. madaxweynuhuna 4 sano hadduu dhamaystay waxa wanaagsan inuu u tanaasulo xisbiyada cusub kale oo marna xukunka qabanin. inkastoo dadweynaha meesha oo dega oo dhan Soomaaliyeed oo dega Somaliland ay xukunka u siman yihiin, misena waxa muuqata inay qolyahaas mataqaanaa isu bedbedelaan. si kastaba ha noqotee waddanka wuxuu ku soo caanamaalay nabadgelyo iyo isu tanaasulaan waa Somaliland kusoo dhisnayd. Hargeysa maanta cid kasta waa deganta. Somaliland wixii joogay waxay isku soo shubteen Hargeysa ilaa Ceergaabo ilaa iyo Boorame iyo inta ka kooban tahay Hargeysa la isugu yimi maanta. marka waxa wanaagsan amniga in la ilaaliyo, in la sameeyo deganaansho, in la isu tanaasulo. madaxweynahana waxaan leenahay ka tanaasul 2 sano 4 sanadood dhamaysata, ka tanaasul oo taanisi xisbiyada kale. hadday iyagu tanaasul waayeen adigu tanaasul, adaa mas-uuliyadda hayo waddanka haya, adaa ka mas-uula. maxay ahayday dadkaas islaameed aan dhibaatooyin la gaarsiinin. dhibaatooyintii hore dhacda ugu filan mudahaaradadii hore. shicibkana waxaan leenahay war guryihiina ku jiro fadhiista. mudahaaradadii hore maxay aad ka faa'iideen aan dhibaato ahayn. guryihiina ku jira, amnigiina ilaaliya. maanta waddan adduunyo lagu ciyaaro lama joogo, maanta lagu ciyaaro ama dhib iyo mashaakil loo bilaabo. ninkay isku bilbilaabo maanta mashaakil waa waqtiga wax ka soconaya dunida. weligeed dhibaataan laga bixin baa dhici doonta. waxyaabaha adduunyada ka jira waa idin iman doona haddii aydan amnigiina ilaalin, aydan deganaansho samayn iyo xasillooni. waxaan leenahay guryaha ha lagu jiro, ha la fadhiisto, yaan laydin soo hoosgelin. wax kasta way dhici karaan. amniga dadweynaha Soomaaliyeed ha la ilaaliyo. xisbiyada hadday tanaasul waayeyna Muuse Bixi tanaasul baan leenahay. waddanka hala dejiyo, dalka hala dejiyo, waddanka hala dejiyo. maxay ahayday wanaaggii lagu soo dhaqmi jiray hore lagu soo dhaqmaa laisu tanaasulo. waxa Somaliland iminka lagu joogaa lagu degan yahay waxaa weeye ammaan. oo arkaysan waxa ka dhacaya koonfur. haddii dagaal dhaco la isdilo yaa la xukumayaa. deganaanshaha laga shaqeeya baan leeyahay. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.